أنا كان ليس هذا اللي يرى الصوماليات جارهان كوجو بنمد السوهوي إسرائيل وكله هذا وحى يقول لي ما دام ودن كبر بصاق لي هذا أنا كان يدب أصول نقضي أو نبدي اللي حلي كوحلي رادو دلت بان أو مركز دمر متقنا حدقها مقدشة الوشة جاي دلت بان أي كسفر عمل مركز أصلا ماشي وفنانتي مقدشة waxaa igu dhaliyay qiiro wadaninimo in aan sameeyo heestan ku saabsan dhalinyaradii soo halgantay wadaniga ahaa sidaas awgeed ayaan erayada u sameeyay laxankana waxaa ku laray Mustafa Xaaji oo Mustafa yar loo yaqaan isla markaana ahaa ninka bilaabay heesta ee isaga soolkeeda lahaa kooxdan ay ka daba jiibinayeen oo waxaa kamid ahaa gabar xaawad degan liira waxaa kamid ahayd Xaliima Kayf waxaa kamid ahaa Xamdi Dheeman waxaa kamid ahaa mataqaanaa Mustafa Bakaari dad badan oo hadda meesha aan ku soo koobi karin ayaa kamid ahaa adiga abwaana hadii dib aan ugu laabano xilligii kugu horeeyay oo adiga ku soo biirtay maslaxa fanka ama suugaanta maadaama in badan ay sida ay sheegtay ku soo gudo jirtay bal dhageystayaasha hadii aad faafahin ka siisay adiga xilligii aad bilowday oo kugu horeysay in aad fanka iyo suugaanta ku biirtay waa goormee 82 ahayd ilaa 89 markii dawladda dhacaysay waaga inta u dhaxaysaba fanka ayaan ku jiray riwaayado badan soo saarnay aasi waana ma qaato samar iyo salfudeyd waayil caashiqa wareer badana shax magaalo sheeko la yaab oo lahaa Allahu naxariistay abwaankii weynaa Nuux Warsame Geedi marka riwaayado badan ka soo qayb galo xataa raadi Muqdisho ay ku duuban yihiin waaga waqtiyada hore barnaamijyo badan qod ka soo dhigay burbur iyo dhibaato la soo maray kabacdi aniga xoogaa ma arkino dhinaca shaqadii ayaa xoogaan u batay marka waxaa igu dhaliyay hami iyo hubbi aan u qabo fanka ayaa igu dhaliyay inaan abwaan noqdo jilaana noqdo muusikiista xataa waan ahay oo rag badan muusikada kabanka waatuma oo la xamiistana waan ahay marka taasi ayaa igu dhalaysa marka inaan muxuu ahay 82 aad markaa ku soo biirtay ma kaliya ayaa meel wax ka bilaabay oo kaliya ayaa markaas wax bilaabay mase waxa jirtay dabcan koox aad ku biirtay oo adiga ku soo barbaarisay kuuna soo biirisay ilaa inaad xad ka gaartay fankii suugaan rag badan oo qaarna dhinta qaarna nool ayaa kamid ah dadkii ugu soo guubaabiyay Allahu naxariistay Xasan Cunsuur Traafika ayaa kamid ahaa Shimaali Axmed Shimaal ayaa kamid ahaa fanaaniin badan abshiri wiilida oo dhinta ayaa kamid ahaa Allahu naxariistay abwaanka weyn Maxamed Gacal Xaayo ayaa kamid ahaa dadka aad iyo aad ugu soo gacan qabtay ugu soo guubaabiyay marka taariikhdeedii waa taariikh dheer balse xoogaaga yarka oo aan ka gaari karno ayaan taabanaynaa gabayo cusubna way jiraan oo wadani ah heeso jacayl ah waxyaabo badanna way jiraan heesaha wadaniga ah oo aad qaadeen dabcan 82 wadanka wuxuu ahaa wadan markaas dawladda hanaqaada ay ka jirtay maxaa markaas heesihii wadaniga ahaa oo mama baraarujin dawladda ahaa ama shacabka ku wacyi gelinayseen hadii hal iyo laba dhageystayaasha haqac uga siisay hees oo lahaa Allahu naxariistay isagana abwaanka weyn Maxamuud Xasan Filfil oo ahayd Soomaali waa qoys aabbo qoro oo wada dhalay qolo ma kala laha ayaa jirtay heesihii waa badan yihiin xoogaa matqan wadankan waxaa soo marnay burbur aad ayaa la soo maray ilaa iyo 22 sano ay ugu soo doqonimadii oo naga daba timid iyo marka waa ka soo fanti aan matqana xilligaas ayaan ku soo jirnay waa gartay marka adiga 80 ayaa ku biirtay dabcan wadanka ka bacdi burbur ayuu galay ma jiraan burburka marka wadanka uu galay waxa qaadeen ama heesa aad qaadeen oo ku saabsan burburka dalka ku saabsan maadaama markaas dawladda ay jirtay dawladda ay dhacday wadankii uu ku soo dhacay meel cidla uu ku soo dhacay oo wadankii ama dawladda ay burburtay inta burburku jiray wax aninka aad curseen oo ku saabsan burburka markaas jiray ka turjumaya hadii jiraan gabayo ayaa jiro oo dhinaca nabadda ku saabsan hidaha iyo dhaqanka iyo suugaanta ku saabsan ayaa jiraan oo gabay hadda la yiraahdo gacalka iyo sheega wuxuu ka mid yahay gabaydeeda aad ka qaaligu ah oo in marka ma waxa qaaday burburkii ayaan qaaday waaga wargeysida Banraama Sanca Tanjire qaran waa lagu soo wada qori jiray hadii ayaka aad hal iyo laba ka xustay abwaane si dhageystayaashu annaka caawin oo dhammaanta qodobo dhowra oo dabcan dhamaanteen aan ka wada faa'iido doono maadaama aad tahay abwaan Soomaaliyeed
way arag u soo ahaa xaaladihii kala duwanaa ee Soomaalidu soo martay in badanna wax ka qoray ama waxa ka soo saaray waxyaabaha ku saabsan dhaqanka iyo sidoo kale iyo suugaanta Soomaalida dad badan waxa asaga darsan dhaqan iyo suugaan dib ayaan ka weydiin doonaa marka bal gabayadii inta burburku jiray awaa dalka oo dawladlaanta ahaa aad qaaday bal dhageystayaasha hawada u mari har yelab waata gabaygan waxa la yiraahdaa gacalka iyo sheegan Soomaalidu garashay tiqiin ii gargaar ee Soomaalidu gartay naq jireen geedka lagu gooyo caadana ma gooy jirin iyo dhaqanka guurtaahe oo way ka go'a jireen gabaad uma sameeyeen yaa gidiya gaar u dhiga gaawiyo culadkeeni geedkii nabadda yaa guuba misna jiridka yuu gooye maandeeqna yaa gooraco rajadi gaararku u tuuray gudco yaa subax mudoo galab ku guureeyay ee geedigii ka ambaday cabaar guluf culeysiye ee orod ku gaamuray rafaad kuma gayeysiyo ee galadii kaligood isbiday gooni u helmooday garab la'aan guul lama helay gacalka iyo sheega hadaa tala gooy lahayd iyo go'aan la isla wada gaaro oo ay guntaadii ku tir warhoy adigu nama garwaaqsiinin guntiga inaad geejisay ahayd gobannimada sharafi guntiga inaad geejisay geesinimadaada gibilkana Soomaalibaad u tahay iyo garaadkaada garab la'aan guul lama helay gacalka iyo sheega Soomaalidu go'aan bay wada lahayd oo guusha lagu gaaro Soomaalidu guddoonshay lahayd iyo geesi libineedi goortay dagaaladu galaafteen gayiga Soomaali guri dumay iyo waxaan soo galniyo guban abaareede gaajo iyo waxaan soo marniyo geeri harweysay godob iyo waxaan soo aragniyo qabiil la isku gowracayo nin gurguurta iyo mid gacan ka maqan maxaa gabana lagu waayay kursi iyo gaboodfal iyo maxaa guurku lagu waayay gaboolay asaaylihi maxay weyday gurigeedii inta iyo gafkii dhacay maxaa garasho lagu waayay waa gartay marka gabaygan sida hadda ka muuqata wuxuu ka tarjumayay burburkii markaas jiray iyo qiimaha ay lahayd yaani midnimadu ay leedahay ma jiraan abwaane kuwa kale oo ayakana ku saabsan in burburkii ama xilligii dawladda ay jirtaba aad qaadeen oo dhamaantood ka hadlaya dhinaca dhaqanka Soomaalida iyo sidoo kale dhalinyarada in lagu wacyigeliyo in ay yaani ka qayb qaataan yaani qayb ka yihiin dhaqaalaha wadanka uu leeyahay ma jiraan wax ayaka markaas aad curuseen waa jirtaa geerarkan waxaa la yiraahdaa waa geerar ku saabsan tacbi wax soo saar waxaa lagu tanaadaa xooluhu ku taamaan dadka tira ku yeeshaa dhaqaaluhu ku taranyaa markay hooltis qaadaa tixdu rays ku qabataa togo biyuhu tooxaan tumaatuna u yeeshaan tulida iyo baruurtuna lagu wada turqaamaa intaa tala tusaaliyo tusmadu abwaan yiri tacab iyo wax soo saar hadaa taabagelisaan ku toosaa dhaqaalaha Soomaaliya isugu taga waxa la isku tabayaa tafaraaruq dhacayaa dadku tooda waayaan dhaqaaluhu ku tiicaa markay turub qamaarka iyo tumashadu badnaataa tuuganimadu dhalataa ee taaha gaajada wiligeed tirmeeyno loo tiigsan xeebaha tartabo iyo taraaqad iyo tabadnid baa ka buuxay nin walba taagaro tusmada waa lagu tanaadaa ما شاء الله xilligaas ayaan sameeyay ay labturkooda dabcan waa sida heesaha ama tixda aad ku baraarujinta u ahayd bulshada ay qayb ka ahayd qodobbo dhowr ayaa noo soo ayaa wili noo harsan oo abwaan ay qayb ka tahay bulshada in loo kala saaro sida suugaan iyo dhaqan in loo kala saaro iyadoo sidoo kale adiga inaad u lahayd yaani hidde iyo dhaqan iyo macama soo jireen waxa jira dadku ay kala dhaxlaan bulshada badanaaba waxa la sheegay dadka waxa la kala dhaxlo balse qaybaha farsamada aan ku yarnasano dib ayaan ugu soo laaban doonaa
وهاجاك dhageystayaal halkan nagala socotaan waa ogaal FM Muqdisho barnaamijkuna waa suugaanta waa dhaqanka iyo suugaanta Soomaalida waxa hore sidaan hore kugu sheegay caawa barnaamijka marti ugu ah Abwaan Axmed Sheekh Cali Abwaan Rosi ayaa caawa barnaamijka marti ugu ah sida maqleyseen baa qodobo hore ayuu sidoo kale uu hore nagu soo bandhigay sida gabayada uu curiyay iyo sidoo kale dhibaatooyinkii Soomaaliya soo maray gabayadii iyo sidoo geeraradii uu ka tiriyay sidoo kale kuwa dhowr ah iyo noo soo abwaane hadii aad mar kale aan dib ugu laabano dabcan Soomaalida waxa saga daran intooda badan haba ugu badnaatay jiilka dambe waxa loo yaqaan suugaan iyo dhaqan marka waxaan rabnaa in aad dhageystayaasha bal hadii aad u sharaxdi waxa lagu yaqaan suugaan iyo sidoo kale iyo dhaqan qodobada ilaa waa dabcan waa gogodan laakiinse badan dhageystayaasha u kala saartay jiilka dambe oo dabcan waxa moodaa in isku qaldaan markii dhaqan ay maqlaan iyo hadii suugaan ay maqlaan ba ismid in u tahay marka bal dhageystayaasha hadii caaway baa ka qabtirti oo u kala saartay dhaqan maxaa la yiraahdaa suugaan maxaa la yiraahdaa qaybahoodana dabcan waxa markii la arko waxa dhaqan weeye iyo markii la arko astaamahooda in lagu yiraahdo waxaan waa suugaan bal dhageystayaasha sidaadaba Soomaalida waxa jirto waxyaabo badan ay dhaqan u leedahay dhaqan iyo suugaanna marna waa mataano marna waa kala labo waaga suugaantu waa erayo la curiyo laguna saleeyo dhaqanka Soomaalida sidoo waxa dhaqankana dhowr siyaabada u baxaa waaga mid waa xeer dhaqameedku xeer beegtada iyo beeldaajiyaha iyo odayaasha geed isugu tagaan dhaqan Soomaalida ay leedahay oo hadii gari kala gasho lagu kala saaro dhaqan baa leeyahay suugaantuna dhaqan bay leedahay soo jireenaho waaya astaamo lagu garto ay leedahay astaamo lagu gartay leedahay suugaantu dhaqan iyo hiddo oo isugu jiro cayaaro gabayo guurow maanso jiifto gabley brambor dhaanto kabeebey bullo cayaaro fara badan dabcan waxa la suugaantaale suugaantaale kuwaas dhaqankaas cayaaraha ah suugaantaale midkaan odayaasha ay adaata gabayga aan ku sheegay Soomaalidu garashay tiqinaha aadaweyn oo geedkana la isugu tigi jiray maandeeqna waxa la yiraahdo hashal dhahayo waa dalka waa calanka aadaweyn marna waa dalka marna waa calanka
markaan dhahay maandeeqni yaa goorco rajadii gaararka u tuuray marka waxay tahay yani dawladnimadii ama yani sheega yani wadankii maamulkii oo faraha ka baxay aad u weyn ama lama odayo isqabatay ama laba beero isqabatay oo go'aan ka gaari waayay ayay geedkii lagu gorfay lahaa xeer dhaqameed uu leeyahay xeer beegtada la yiraahdo dhaqankan kalena fanka iyo suugaanta ayaa la iyo ciyaaraha dhaqanka waxaas oo dhan waxay hoos tagaan dhaqanka iyo suugaanta Soomaaliyeed ee hoos tagaan aad u weyn marka markii yani waxa noo sheegtay suugaanta in ay hoos tagaan ciyaaraha iyo sidoo kale oo dhowr qodob ah ka sheegtay in hoos tagaan dhaqankana dabcan marka dhageystayaasha hadii abwaan u kala saartay yani suugaanta iyo dhaqanka waxa weyn dabcan waxa weyn ma taqaanaa sida noo sheeg dhaqanka weyn laakiin suugaanta waa neefka geela hoggaan la'aan ma socdo aad u weyn hoggaankii dhaqanka waxa suugaanta bilmeter waxa ka soo qaadanay laba beela isku dhacday ama laba shakhsiya isku dhacday abwaan baa yimiday ama waa u shirbay ama waa u guurooyay ama geeraad buu ku waaniyay taasoo ku salaysan ma taqaanaa dhaqanka suugaanta ay ku salaysan sidii ayuu ma taqaanaa oo ku heshiisiyay ayaguna sidii ku soo jilceen marka sidaas awgeed Soomaalida dhaqankeedu waa badan yahay xataa guurtidu dhaqan bay leedahay u gaara alaaba lagu dhaqmaa jir ayaga dhaqanka guurka oo guriga isagana gooni waa waxa dhanna waxaa lagu fasiraa oo lagu kala tilmaamaa suugaanta dhaqan haduusan suugaan lahayna waa dhaqan ba'ay oo go'ay abwaane maadaama adiga waayajoog u ahayd haddii aan dib ugu laabano ama aan wax kaa weydiino waxyaabaha Soomaalida dhaqanka u ahaa jiray oo Soomaalida kusoo dhaqmi jirtay waxa hadda badanaa waxa hadda la yiraahdaa wax in badan waa isbedelay dhaqanka Soomaalida waa isbedelay sida markii miyiga magaalada la joogo markii miyiga la joogo kale waxaa jira dhaqan gaar ah oo dadku ku dhaqmaan hadii tahay haasaawaha ay tahay hadii tahay ma taqaan xididka oo dadku ay xididaan ay tahay hadii tahay ma taqaan yaradka iyo xoolaha badanaa la kala qaato waxa la isdhihi kala wax badan ayaa hadda waxay yiraahdaan aqoonyahanada Soomaaliyeed wax badan ayaa isbedelay adiga maadaama aad abwaan Soomaaliyeed kamid tahay hadii dhageystayaasha qaar kamid ah dhaqanka lagu yaqaan Soomaalida oo caan ku tahay oo dal kale ama wax kale loo wadaaga aysan jirin maxaa ay kamid Soomaalidu waxyaabo badan ay dhaqan u leeyahay waa jirtaa qaar baaba'ay oo aana lagu dhaqmin waa jirtaa kuwa hadda xoogaa wax yar miyiga ku dambeeyna waa jirtaa dadka miyiga ku noolayna magaaladii ay soo galeen dadka magaalada qaarkoodna miyiga ay tageen dhaqankii magaalada iyo dhaqankii miyiga qaarkood xataa isu ekaaday oo la isfahmay waqti hor sida sheegayso waa jirtaa guurka xaqiisa xeero u gaaray laha jireen hadda laakiin sidii hore maahan waxa isbedelay ayaa la dhihi kala awaan waxa isbedelay waqtigan casriga ah adduunyada casriga soo gaartay xilligii hore aaladahan hadda oo internetka iyo website-ka iyo ayaan Google la dhahayo waxaan oo dhan ma jiri jirin waxay wax isugu gudbi jireen murti iyo maanso oo dadka waxay u ahayd wacyigelinta bulshada u ahayd meel markii la isugu yimaado lagu shirbo ama lagu ciyaaro dhaanta aato ciyaarta kasta ahaatee waxay isku gudbi jireen aaraadooda iyo fikradooda iyo waxay markaasi ka qabaan waxay markaasi dhaleelsan yihiin xilligii marka maadaama uu isbedelay noloshii dadkana waa isbedeshay dhaqankiina waa isbedelay laakiin Soomaaliya hadaan nahay waxaa fiican inaan dhaqankeennii hore aan soo xasuusano gaar ahaan aniga abwaaninta Soomaaliyeed aan kamid ahaa waxaan jeclahay heesayga badanaa waxaan jeclahay inaan ku lamaaniyo dhaqankii hore iyo waayihii maatay abwaaninta Soomaaliyeed iyo fanaaniintana qaarkood xataa waxaan ka codsanayaa erayada qaarkood xataa oo ku habboonayn dhinaca dhaqan Soomaali aan ku jirin dhaqan shishay ay ka soo qaadanayaan inay ka dhaafaan abwaaninta wax samaynayo ay tusaaleeyaan dhalinyaradan da'dan hadda soo kortay 20 ha inay fahamsiiyaan kuna fahamsiiyaan mataqaanaa murtidooda iyo maskaxdooda ku fahamsiiyaan walciga markaas oo Soomaalida la haajirtay dhaqankay la haajirtay ku fahamsiiyaan maxaaba kamid ah ayaa la isdhihi kala abwaane maadaama
waxaa noo sheegtay in markii hore ama soomaalida hore ay wax soo gudbi jireen qaab shirib ama yacni murti ah ama gabay ama guuru wax soo gudbi jiray hadda waxaa hadda dhaqankii hore badanaa waxa waa bedelay waxyaabaha hadda lasdhihi karo way bedelmeen oo sidii hore fariimihii hore ay ma wacyigelinta la soo gudbi jiray wax badan ayaa hadda ka bedelan ama hadda abwaanada Soomaaliya hadda jira ama kooxaha hadda jira oo inta badan qaada ama wacyigelinta bulshada waxyaabaha isdhihi karto hadda way bedeleen maxaa ka mid way badanto waxa arkaysaa wiil baa hees soo qaaday ama gabar hees soo qaadayso wiilkii wuxuu leeyahay heestan waxaan ula jeedaa hees heblaayo oo qofka hore yacni ama uu qaaday xataa abwaanka alifay ula jeedadaas umana alifin ugumana dhiibin laakiin ayagii ayaa kaligood waxay rabaan kan samaysanay meeshaas marka waxay kamid tahay dhaqankii oo Soomaalida leeyahay oo burburay suugaanta Soomaalida leeyahay iyo murtidii wanaagsaneed oo xoogaa mataqaanaa dhaawac gaaray waxaana dhaawacaas ka dhayi kana bogsii karo abwaanita Soomaaliyeed ninka markuu hees u dhiibayo fanaanka markuu hees u dhiibayo abwaanka Soomaaliyeed waxa looga baahan yahay in uu fahamsiiyo inuu isaga yahay nin Soomaaliya in uu leeyahay dhaqan u gaara in uu yahay nin Soomaaliyeed oo mataqaanaa diinta islaamka heesto anshaxa iyo asluubta waxyaabaha mataqaanaa ku wanaagsan anshaxa inuu ku saleeyo erayada wixii oo shariicada islaamka iyo waxa u dhameeyay dhaqankana uu ka reebo hadii laakiin uu kaligiis gooni u goosaarto fanaankaas fanaan jira noqoma heesahan waxa loo baahan yahay inay yihiin heeso murti ku saleysan ujeedadii oo abwaanku u sameeyay na aad muxuu ahay ku wado laakiin daatiraad hablayn ula jeed ama hebala ula jeed abwaankan oo san raali kaag ahayn ma aad bay u xun tahay waxaa jira in la yiraahdo inta badan hadda abwaaninta jira ma leh gabayada ama yacni heesaha murtida leh hadda ayagu ay curiyaan soo ma habboona inuu qofku markii abwaan uu yahay oo dabcan in uu hal abuur ku soo kordhiyo bulshada fariinta uu dirana ay tahay mid ku saabsan hidaha dhaqanka Soomaalida ka turjumaysa sidaa sheegtaba hadda waxa hore uga dhawaajisay in wixii hidii dhaqanka hore ay bedeleen hadda qaarkood awaanta qaarkood oo jira oo ay ku saleeyaan waxyaabo kale oo ka baxsan dhaqanka Soomaalida ka baxsan marka maxaa qofku markuu fanaan yahay ama abwaan uu yahay maxaa la habboon inuu markaas ku saleeyo waxyaabaha uu u soo gudbinayo bulshada ku xiran haddaan ka soo qaadno Soomaalida waxaa u habboon inuu ku saleeyo abwaanka marka horta wax kastaba hooyo abay leeyihiin waa gar fanka iyo suugaanta waxa aabeed ah abwaanka Soomaaliyeed ama baraambur hatri ama gabar baraambur tirasa ahaato ama abwaan heesa iyo gabay sameey ha ahaado abwaanka ayaa furo u ah waa gar ama wiil da'yar ha ahaado ama nin gabow oo duq ha ahaado haddii uu ujeedadan oo u samaynayo ay tahay mid dhaqanka Soomaaliyeed aan wax u dhimayn kulana taliyo fanaanka u dhiibayo heestan anigu waxaan kugu dhiibay noocaas qaabkaasaan kugu dhiibay waa hees ka hadlaysa dhaqanka waa hees jacaylka ka hadlayso ujeedo kale iyo cid kale oo ula dan leeyahay male haddii lagu warsado oo lagu yiraahdo heestan erayadeeda iyo maxay tahana jawaabtaada ha ahaato abwaankii sameeyay ayaa ka jawaabi karo adow ma garatay waqtiga hore waxaa jirtay xilliga waayo birsamaadkii faapreeb ay dawladda laheeday oo markore yaani soo marsi jiray fanka suugaanta akademiyada iyadoo faapreedkaas la soo marin riwaayad lama dhigi jirin iyadoo heestaas faapreedka soo marin lama qaadi jirin kala dambeyn baa jirta laakiin hadda burburkii ay yimid awgii ay arintaas ku dhacday laakiin waxaan aad iyo aad ugu gubaabinayaa fanaaniinta Soomaaliyeed iyo dhalinyarada iyo abwaanada in ay ku dadaalaan maanta wixii ka dambeeyay sidii dhaqanka Soomaaliyeed sidii murtida u lahayd dib loo soo celin lahaa oo ay macna waxyaabaha ay bulshada u soo gudbinayaan ay ugu saleynayaan in ka turjumaan dhaqankii Soomaalida waxa jira abwaane in hadda Muqdisho oo kale ama Soomaaliya kale waxa ka dhisan kooxo badan ayaa jira ama dawladdu ha fangareyso ama ayagu si gaar ah isku fangareeyaan oo dhaqaale si gaar ah u heleen marka waxa jirta badanaa in ku celiyaan dabcan heesiyo hore wadaniga la qaaday ama gabayaal dad hore oo dabcan geeriyooday ay qaadaan in ayagu ku celiyaan oo badanaa hadda ayagu yaani waxba ay soo korin arintaas waxa ayada ka dhiilahayd qofku maadaama markuu fanaan yahay inuu asagu hal abuur uu keensado oo bulshada u soo gudbiyo ayaa muhiim ah sida aniga ay tahay ama bulshaduba ay sheeg u muhiimsan marka waxa moodaa hadda inay jiraan
kooxihii Soomaaliya ka jiray ama kuwa dawladda ahaayeen ama kuwa ayagu isku isaga ha noqdeen inaysan waxba hadda soo kordhin oo 90% ay ku celiyaan heesiyo hore oo xilliyada hore barasamaadka la qaad waa tahay waxaa jiro ninkan heesiyo hore qaadayo laba siyaabood ayaa u geysay mar wuxuu waayay wax uu qaado hees ah ama abwaan si ayuu waayay hamiga fankiisa ayuuna ka helay inuu fanaan noqdo music classic oo soo duubanayaa wuxuu saaranayaa heestii oo fanaan kala lahaa ama ha dhinto ama ha joogo laakiin waqtiga hore waxaa jirtay fanaanka markuu u fasaxo in ka bacda oo qaadaan sidii yani burburkii wadanka u dhacay ee wax kasta meel yaa la iska qaadaay ayuu fankiiyo naqda sida dhibaatadaasna waxaa looga bixi karaa in fanaaniinta Soomaaliyeed dalad ay ku midaysan yihiin ay yeeshaan ku kala dambeeyaan abwaaniintaasna ay mataqaanaa toosiyaan fanaaniinta hadda jirto yar kuwii hore u soo baxay ku hadda jecel inay soo baxaan waxay ku xiran tahay dalad loo dhan yahay oo fanaan oo abwaanada Soomaaliyeed ay sameeyaan meel ay ka duulaan oo lagu yaqaano oo meeshaas ay ka soo saaraan waxay gelinta ay bulshada u gudbiyaan abwaaninta isku wada xiran oo aan loo kala soocin mid yar iyo mid weyn oo gibigood oo dhan ay abwaan wada yihiin hadduu abwaanka 10 jir ama 20 jir yahay haddaan aniga hadda nin weyn baan ahay aan iraahdo abwaan ma tiid ma wanaagsano hadduu abwaan yahay waa inuu mataqaana isagana abwaaniinta lagu daraa abwaaninta waa weynado horna qaar baa ka joogo kuwa haddana waa soo baxeen haddii dalad sida aniga aan qabo dalad midaysan loo sameeyo fanku inuu hagaagayo aan aaminsana suugaantuna ay dhaqankeedii hideeda soo noqonayo sida sheegtay abwaane xilliga hore abwaanada ma waxaa jiray qofka criteria loo fiiri jiray ama yacni waqti la dhihi jiray qofkan hadduu intaas gaaro ama da loo fiiri jiray miyaa jirta mase qofka marka la arko inuu leeyahay hal abuur in uu markaas sheeg uu qabo waxa loo soo gudbi jiray in uu sheeg yacni in markaas u gudbiyo bulshada fariimaha uu wado mase waxa jirta qofka da iyo heer liijo qofka markii dabcan haddii qofka uu gaaray intaas markaasna uu leeyahay mataqaana sheeg uu abwaan noqon kara alaashan uu leeyahay sheeg ima kale xirfadii asagoo fahansan ila qof waxa rab markuu waxa gudbinayo inuu yaqaano waxa ay bulshada ka bedeli karaan iyo waxtarka ay bulshada ay u leeyahay dabcan isleey hadda waxa moodaa dadka inta u badan hadda fanaaniinta Soomaaliyeed in ay dhalinyaro yihiin dadkii hore ama magaca lahaa ama wax uru jiray in hadda ay goobta ka sii baxayaan oo saaxada fanka ay ka bixi rabaan marka xilliga hore ma waxa loo fiiri jiray waqti qofkan iyo da loo fiiri jiray mase waxa loo fiiri jiray qofkan hal abuurkiis xilligaas horta waxaa adkeeday sida fanka lagu galo waa adkeed anigaan hadda markaas nin oo 20 jir ilaa 30 jiraan ahaa hobalada waaweynka si sahal ma lagu galay idaacadna halaa ka jirtay si sahal lagu ma tagay waa mid dawladda taasina waxay aheeday ciriiriga loo marayay fanka hadda laakiin waxaa dhacday aalada casriyaha la helay gurigaadaad ku samaysanaysaa heesta isla gurigaadaad ku gashee halkaas YouTube iyo website ka gashee laakiin waqtigaas waxaa loo soo mari jiray imtixaan heesaha hergelay ilaa iyo faabreeb waxyaabo badan loo soo maray si adag lagu soo gali jiray fanka in marka way adkeedo qofka markuu fanaan noqonayo in uu gudbiyo dabcan mataqaan fariimihiisa bulshada u soo gudbiyo waa adkeedo qofkan marka hore ma yahay waa nin oo ruub cadaa ah ama yacni fanka ku soo dibamurxay waxna ka yaqaano dhaqanka iyo bulshada suugaanta erayada oo soo gudbinayo qofku marka uu yahay qof oo waay araga waa soo shacbi jiray laakiin si dib leh ahayd in maxaa dhalinyarada ku soo baxaan hadda inta badan waxaa jira hadda dhalinta Soomaaliyeed ima hadda maslaxa fanka ku jira ayagoo hadda wax taageera dabcan inta badan cidna ka helin in qofkii uu waqti dheer u soo maro inuu noqdo fanaan uu noqdo uuna sheegto asagoo waqti badan soo maray wax tababar iyo intaba ku helin inuu markaas uu sheegto inuu fanaan u yahay dabcan taas maxaa ayaka la gudbaan hadda dadka fanka ku jira ma inay yacni sheeg qofkii asagoo inta waxa sheegtay in imtixaan loo soo mari jiray fayl dheer la soo gali jiray marka wixii dunta ka bacdi in ay sheeg
in dabcan kabacdi heesaa qofka in loo geysho yani sheeg statement dheer dadka inay sheeg ay soo mari jireen marka hadda waa iska fududahay aaladii baa saa jirta in qofka hadda marka inuu noqdo fanaan waliyaado qof yani mataqaana hal abuurka hebel baa iska lahaa soma adkaanayso maadaama aysan jirin waxa ay sheeg imtixaan iyo waxa ay sheeg oo kala reebay horta way adkaanaysaa balse waxaa jirta hadda annaga naftigeena wiilal badan oon soo saarnay iyo kuwa hadda aan soo saari rabno waxaa dadkaasi badan ka mid ahaa wiilal oo yar oo hadda Siciid Barmudo la yiraahdo heestayda qaado dadka soo baxay ayuu ku jiraa wiil kale oo isagana oo la yiraahdo Siciid oo la yiraahdo Ismaaciil Muuse oo soo saaray anigii waxaan soo saarnay Abwaan Baashi Maxamuud Macalin oo hayna xidigaha Muqdisho ilmihiisa abwaanida soo saaray intii karaankayna qaar badan aan soo saarnay maadaama yani mataqaanaa aysan wili meeshii laga rabay aysan joogin haddana waxaanu jecelnahay inay zaa'id u soo baxaan waana garab qabanaynaa fanaaniinta yaryar si annaga dhibka aan soo aragnay maxaa yeelay fanka marka la soo gelay dhibay ahaa jirtay hadda laakiin haddii ay naftigooda wax fahmaan abwaanada haddii ka faa'iidaystaan oo ay mulaxanka iyo abwaanka iyo muusikiisayaasha inkastoo dhaqaalo ku xiran tahay haddana hamiga waxaa la yidhi dadaala wuu gaaraa haddii aad rabto inaad fanaan naqato oo dadaashid abwaan wanaagsan aad heshid garabka kaa qabto waad soo baxaysaa laakiin dadka inta badan falaqaya abwaane waxay sheegaan in heesihii hore ama yacni murti ku jirtay murti ay ku jirtay oo dadka markii dabcan loo gudbina fariintan ay tahay wax dadku ma ay sheeg ay kuwana qaataan meelaha ay yacni sheeg dadka dhibaatada u leh iyo sida dadka fariin wax u gudbiyay laakiin hadda waxa la sheegay inaysan ahayn oo sidoo hore ay ka duwan tahay qofkii wixii markii sheeg u qaaday uu soo kala hayn hadaf uu iska lahayn on galiya ay ka tahay qofka inuu wax qaado uu soo caanbaxo uu noqdo fanaan uu noqdo maya hadda horta murtidii hore oo dhaqanka ku saabsaneed ma jirto markay abwaanadan ay sameeyaan abwaanada hadda aniga da'deeda camal ama waxay iga weyn waa dhifi qariir wax ka joogo abwaaniintan dambe oo ama qurbaha jiro ama dalka jooga qaarkiis qaar way jiraan xoogaa oo dhaqankii si ku soo dirayo wax dhaqankii quseeyo waaga hadda koreystayda waxa aheeday haddii aanan hodanay jacaylkaaga hari karin ama halaq dugaagiyo howdkaaga tigi karin horta hore hanaankiyo hidihii ma haysaa mise dhaqan habaawshaha kuwa heesta maad noqon hilaa xugun ku joojiyey hoor lagama helayee hawadii haweenkaad hal hubsiima moodaa heedha ina yahay dooq heli waayo kuu rabay hurda jiif maladayaa hamba dheef ma reebtaa hawadiinu waataa waxay marka waxaa ku jiro marka dhaqankiyaa ku jiro maadaama yacni sheeg qofku markii uu sameynayo yacni sheeg dooq uu sameynayo yacni waxaa lagu sareey jiray dhaqankii Soomaalida ayaa dabcan baa lagu sareey jiray geela looda dhaqanka mataqaan markii oo mataqaana ceelka loo dhaaminayo markii mataqaana buuraha kamida badda kamida wabiyada kamida geedaha kamida shimbiraha kamida qoraxda iyo bisha kamida waxyaabaha loo soo qaato fahmino marka waxaan ku guubaabi lahaay dhammaan dhalinyarada Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa fanaaniinta ah iyo kuwa hadda rabaan inay noqdaan in ay ku dadaalaan si wadankooda dhaqankii oo lahaa jiray iyo suugaanta siday aheeday in ay raacaan saantii hore oo fariin sax ah ama ka turjumaysa hidaha dhaqanka Soomaaliyeed sidoo ku toosi lahaa kalana soo xiriiraan abwaaninta waaye aragga kala soo xiriiraan si ay heeso fiican u helaan iyo murti uga helaan dhalinyarada kale marka dhageystayaasha ah waxay fahmayaan heestan inay ku saabsan tahay wadankooda sidoo dhaqankiisa ahaa jiray sida guurtida ahaa jirtay sida loo soo ixtiraami jiray sida macalinka loo dhowri jiray sida waalidka loo dhowri jiray marka aad baad u mahadsan tahay ugu dambeystii abwaane adigoo waqtigaada aan caawa ka faadisanayno adiga waxaa noo sheegtay inaad 80kii aad kusoo biirtay fanka iyo sugaanta maslaxooda ayaa kusoo biirtay adiga marka hore ma waxaa jiray in dabcan ciddaada iyo familkaada ahaayeen dad oo fanka sugaanta ku dhex jira mase waxay ahayd adiga mataqaanaa
hobbigaada ayaad in adiga markaas dabcan kaligaaba ka go'aansaday inaad ku biirto mase cidaada awal yani hiday dhaqan hore jiray oo cidaada xageeda howraarta maansada iyo hidaha hibe ilaah baale rag horjoogsiga iyo hanaan wacanna heybad qurux baale guuhi laacay endi in hamuun loo qabiyo huguf dabayl baale hanti lagu farxiyo inaad heerka sare gaarto ha ku xiiqin la isku muhubee hawo adduunyaale dayr hoortay haraduna biyo leh uunka ka haraadsan hayb la isku soociyo hogi qabiil baale hufya been aan lagu hodmayn iyo hadal wax urinaayo nin hinaasay waa lagu yaqaan husni isagaale fanku sidiisaba waxaa laga dhaxlaa ama abwaannimada ama suugaanta ama murtida dhowr siyaabood ay ku timaadaa mar waxay hidraac waa ayl dambe ay sheeganeen mar waxaa waaye fikir badan iyo dhibaato ama dhinac jacayl ha noqoto ama dhinac murug kale kaaga timid ha noqotay waa kaaga imaanayaa naxdin kuma yimaado laakiin wuxuu ku yimaadaa faraxa wuxuu ku yimaadaa ciilka qaarna hidihii dadkii oo awoowayaashiisii ayaa ahay dad qabyaa ahay ama dad murtil ahaa meeshaasna waa ka yimaadaa aniga fanka marka raggii ugu gubaabiyey haddii aan cawda inta ka salaamo waxaa ka mid a abshir boodhe nin la yiraahdo xarbiyare maxamed boodhe dad aad u fara badan abwaan baashi axmeday gaabane rag yani mataqaana aan hadda meeshaan ka sheegi karin dhammaantoodba waa salaamayaa marka waxay adiga hobbigaada ayaad inaad barati oo kusoo birti maslaxa fanka iyo dhaqanka waa sugaanta fanka iyo dhaqanka orada iyo sidoo kale inaad noqoto abwaan Soomaaliyeed waa adiga adaa jeclaaday maahane ma ahayn waxa hindisida ku yimid ama waalidiintaadii cidaadii ayagu ay ku lug lahaayeen aniga hadaan ka dhax garo wadaad adeerka yahay gabyaa u ahaa Sheekh Muuse Ibrahim waxa la leeyahay Ibrahim Sheekh Muuse Ibrahim afay Allah naxariisto gabyaa u ahaa qaar badan oo mataqaana qaraabadana waxay wada ahaayeen abwaaniin محمد قال حيو كمدها فنكون واحد الرع أبوان مدن واحد الرع بين ماهن وعن كل واحد كان هالكان سلامات جال الحسن لوحي رأس كان كتاريست فنان لما أنت تبعوض حنقول وفائدة سنة أنا هالكان سلام بعد أكمل إذا فرسم يقان هذا يوم ما صنت هاي كسوحها أبوان أحمد الشيخ علي روسيا أياه لقوا مجاعبة وكمل أبوان أنت الصومالية سيدا مغلى السنة دقيقة إن بدن كسو جدوشري fanka iyo suugaanta Soomaalida in badan heesa badan iyo sidoo kale murti badan soo curiyay sida maqleesheen qodobo qaar kamid ah fanka iyo suugaantii uu kusoo ama uu ka soo qaaday inta kusoo gudo jiray fanka iyo suugaanta Soomaaliyeed ayaa halkan uu nooga soo gudbiyay aad ba maasan tahay abwaane adiga iyo dhageystayaasha dhageysanay intaas ayaan kusoo afmeeraya barnaamijkii fanka iyo waa suugaanta iyo dhaqanka Soomaalida oo caawa halkan uu marti ugu ahaa abwaan Axmed Sheekh علي روسي أنيقا وباشا على عشاء يعني سو صاري برنامجكو برنامج تضبط الله وتضبط كي همين أذكر سعود دونتان وربهنت أوغال FM وأنا همين كأحد يسيب بحيسو وثلاثة ويسيب بحيسو أربعة يسوق جلسو أنت يعني كوسو أفميريا برنامج واحد قريبه هو رفرسمين ياسين أبو كركسكي يو سيدو كلا عبد الرحمن عمر علي أيا فرسمين قريبها ضمنها هالكو فديي عبد المالك عبد الله وباشا على حاشية عبد المالك وين الله سيد أسيو نبت قلي
dalaalka kama dhargo dalgobeeday markaan ku dhugtaan dhaygago dhowsan iyo bilaanka dhursugayayo dadhaban madhigo dheelalowba idilay